ilmihii marka maxay ku sheekaysanayaan wixii macalinka sifaadaadkii uu sameynayay ayay ka hadlayaan sifaadka muxuu noqon marka sifaad xun buu bulshada dhexdii u gali macalinka sidaa darteeda macalinka waa in laga helaa salaamatul i'tiqaad alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا إله يا مهدس كله الله نقد قيدد مسلمة نوغل هذي diintan in aan baranno dadkana barna ku dhaqanna kuna camal falna Allah ayaa mahadi oo dhan u sugnaatay sidaa darteeda waxa weeyaan mowduuca anaga maanta wuxuu ku saabsan yahay la tacaamulka macallimiinta ama macallimka ula tacaamuli lahaa dadka kale waayo mucallim qofba mar haddii darajo mucallim uu qaato dadka waxa weeyaan la tacaamulkiisa oo la dhaqankiisa inaysan isku mid noqon asaga iyo dadka kale ayaa la rabaa sidaa darteeda waxa weeyaan maadaama waqtigu uu cariiri yahay uu aad ciriiri u yahay waxaan ugu yara faa'iideysanayaa insha Allah intaan yar in aan macallimiinta ala hadlo waxa weeyaan ya muallim maanta oo kula hadlaya hadalka yagana ha u fahmin xumaane u fahmo ama u qaado si aqliyaysan oo caqiidaysan u qaado waayo qofka shakhsiga ah nabi ma soo dirin Allah subhanahu wa ta'ala illa hadu soo diro waxay oranayeen u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru war ilaahay caabuda idin ma sugnaanin Allah ghayrkii idin ma sugnaanine الله عابدا سدا درتيدا marka waxa weeyaan macalinka waxa la rabaa booska nabiga uu taagan yahay inuu ummad ugu yeedho khayrka wanaaga xumaanta inuu ka manciyo fuxshada inuu ka reebo beenta inuu ka reebo dulmiga inuu ka manciyo xaasidnimada inuu ka reebo zinada inuu ka reebo heeso inuu ka reebo la rabaa macalinka waxa weeyaan tiirarka islaamka uu ka mid ah sida darteeda yo muallim aan kula hadlaya maanta waxa hal tusaale kaaga soo qaadanaya Aamir ibn Utba in la oran jiray ayuu la hadlaya li muallimi waladihi wiilka uu isagu dhalay macalinkiisa la hadlay Aamirka dad la hadlaya wuxuu dhahay liyakun awwalu islahika lahum islahuka nafsuk wuxuu yiri waxa tahaata inta islaahidooda wanaajintooda hagaajintooda aadan biloobin islaahuka nafsik awwal adigu ishagaaji dadka ina hagaajiso ina wax u sheegto ina wax barto ina wadada fiican amariso hadaa rabto ka horbal un adiga ishagaaji nafsada yada hagaaji liyakun awwal islahika lahum islahuka nafsik intaadan ummada wax aad u sheegin ama aadan hagaajin ka hor un adigu ishagaaji hagaajinta marka adigu hagaagsan tahay bay dadku kugu dayanayana ay hagaagayaan waxa weeyaan noqo qof iqtidaa lagu daydo imaam baa tahay kaada almuallim ay yakuna rasuula muallim wuxuu sigay inuu noqdo rasuulba maxaa yeelay muallim wuxuu faafinaya diinta muallimkan waxa la yiri ودت فقراء هذي جرا نك وفقير سن ومعلمك هذنا أن دبكي سدمي ويا دبكي سد مدمو
marka sida muxuu dhahay Amir ibn Utba hagaajinta ilmaha yaga waxa ka horeysa inaad adigu isagaajiso maxaa yeelay fa inna uyunan macqudatun bi'aynika maxaa yeelay buu yiri ilmaha indhahoodii waxay ku xiran yihiin indhahaaga buu yiri ilmaha indhahoodii waxay ku xiran yihiin adigu indhahaaga adigay ku eegayaan waxa sameynaysa ba fiirinayaan saad u dhaqmeedaad fiirinayaan saad dadku la tacaamulaysa fiirinayaan kayfiyada u falcelinaysa fiirinayaan waxa aad sameynayso oo yaani agtooda ku sameynaysa fiirinayaan marka waxa la yiri maxaa wax xun ah maxaana wax hagaagsan ah wala su'aalood oo cajiib ah mal hasan wa mal qabih maxaa hagaagsan maxaana xun waxa xun horta waa maxay waxa hagaagsanna waa maxay noocay u yaaliin qaabkay u eg yihiin maxayse shabahaan seen lagu gartaa shaygan inuu xun yahay inuu hagaagsan yahay maxaa lagu gartaa nacam waxaa la yidhi falxasan cindahum maa sancat waxa hagaagsan waa waxaad ku ag samaynaydo weeyaane ummadda ama ardayda waxaad ku ag samaynayso weeyaane waxa hagaagsan waxa maanta samaynaydo ilmihi aad faraydo ilmihi aad baraydo aad kagala xishoonaynin oo aad u sheegaydo aad hortoodan adigu aad ku samaynayso falxasan cindahum maa sanacta waxa hagaagsan waa waxa agtooda aad ku samaynaydo weeyaane maxaa xun waayahay wixii wanaagsanaa waa fahanne waxaa xun buu yiri walqabiixu cindahum maa tarakt waxa xunna waa waxa dadka kagala dheeraataa oo dadka kagala dhuumaataa oo dadku godcur meel mugdaan la arkeen inaad ku dhuumaalaysataa weeyaane walqabiixu cindahum maa tarakt waxa xunna waa waxa kagala aqdaqaaqid dadka weeye marka qofka way isfahmi karaya waxun ninkan dadkan bulshadaana oo dhan ay arkayaan waxun inuu sameeyo siga yeeqsanayo oo ma sameynayaba laakiin wuxuu sameynayo hadaa aragtid waa wax nafsidiisa la hagaagsanaato la wanaagsanaatay weeyaane oo uu si leeyahay dadka arinka sameynaydo ayaguna way ku hagaagi doonaan hagaagun baynu fahmi doonaan ay is leeyihiin weeye marka macallimka ama mutaallimka waxa la yiri mutaallim yaksibu al-akhlaq min muallimihi fi maqami qudwatillah mutaallimku ama ardaygu wax baranayo wuxuu akhlaaqda ka kasbadaa ka soo qaataa macallimkiisa isaga booskiisana ugu daydaa hadayana mutaallimku ninka wax baranayo oo ardayga ama tullaabka hadda saa u naqaano wuxuu wax ka soo qaataa akhlaaqda haday hagaagsan tahay iyo hadaysan hagaagsaneen wuxuu ka soo qaataa muallimkiisa min muallimihi muallimka uu ka soo qaataa sida darteeda marka maxaa laga rabaa macallinka in laga helo aqeedo saxan macallina waxa la hadda ka hor wuxuu leeyahay ilmaha xiliyada marka la gaaro salaada haya wariyaada orda masaajidka aada masaajidka oo ilmihi u diray marka ilmuhu ay masaajidku aadaanna isaguna gurigiisa u aadsanaya markaas ilmihi maalin walba waa ilma isku mid maaha kuwa aqli badan oo xisaabtamayo fikrayo ku jira markaaba waxay yiraahdeen macallinku beri walba masaajidka noo soo diray isaguna gurigiisa iska aadsada warwaa sida isagu salaad laga maro miya marka canuga wuxuu dhahay war miya waaranta adigu may dadku hadii ay weynaadaan salaadu waa laga qalan jabiyaa buu yiri sida macaahida iyo jaamacadooyinka iyo madarasooyinka looga qalan jabiyo looga qalan bedesha macallimku uu qalan jabiyo heerka la rabay salaad isagu waajib ay ku ahayd uu gaarsiiyay sidaas oo inagu noo dirahaya naam nigi kalena wuxuu yiri war macallinka ma dugtaba waligiisa nin dugtamo sanaheeno bal un ceewoowina ilmahaaga dir un bay ka heesaamoye nin salaadii waxa isku mashquulima haba ilmihi marka maxay ku sheekaysanayaan wixii macallinka sifaadaadkii uu sameynayay ayay ka hadlayaan sifaadka muxuu noqon marka sifaad xun buu bulshada dhixdii u gali macallinka sida darteeda macallinka waa in laga helaa salaamatul i'tiqaad aqeedo toosan inuu laga helaa yaani nabadgeli laga helaa macallinka intee weeye aqeedadiisa in ay ahaato mid nabadgalsan salaamatul i'tiqaad maxay ka nabadgalsan tahay min ash-shirk wal ghurafat wal bid'ah
shirki in ay ka nabadgalsanaato khuraafaadka inay caqiidadiisu ka marnaato bidca waxyaabaha bidcagana caqiidadiisa in laga helin weeyaan marka tusaale ahaan macalinka hadii yani waxyaabaha soo wadle ay ka yihiinbo aniga hadda goor waxa la yiri wariya ayaa ku abuuray aniga ahaa hooyaday bay dhashay buu yiri hooyaday bay dhashay war hooyada ku dhashay la gartay ayaa ku abuuray ku rabeynayo aaba buu yiri aaba ayaa abuuray canuga hadda quraan bartumuhu ay maraayo weeye marka maxaa sababay macalinkoona hagaagsaneen macalinka wuxuu isaga yahay bay ilmuhu dibadda ay geenayaan ya muallim hadaanahano aan isilaalino marka ya roobkan keeno allah ya sidaas sameeyo allah ad-dar wan-nafi' min allah marka sidaas laga rabaa midka dibka keena waa allah midka nafciga keenana waa allah bas ilaah ku xeer warta ardayga waxa lagu baahan yahay ilmaha inaa ku xirtay teedi kale waxaan ku soo gebgabeynaya ilmaha macallimiinta ay inkaarayaan ilaahay nacalada kugu ride damiin baa tahay wax ma baranaysid inta ka dhacday xagga ka dhacday wiilkiina wax baranayna adaa sheegtay bas khalaas muxuu dugsi kugu fadhiyaa waxaan baranaay adaa sheegtay muxuu dugsi kugu fadhiyaa horta mis weydiisay ninkan adiga waxa ku dhaad damiin baa tahay waa inuu damiin yahay macallinka adiga haaqirayo maxaad bis uga qaadan oo ku hor fadhiyaa haye marka waxa laga rabaa ardayga markuu qalad sameeyo xaqiiqa ku haydo marqaat iska dhaafa indhaha ku qabatid xitaa waxa la rabaa warkaali ya maahir alquran warkaali wariya faiz alawwal baata ila ku barakeeyo ya waladi ma sha Allah jazakallahu khairan ya hafiz alquran sidaan maxaa u sameeyay ma sameey jirin ha sameeynin ila dhahdo ina u dhimrido daweecad qalafsan qofka macallimka haduu leeyahay arday uma iimaanaysa ardayna ma xakameyn karo ardayna ma wadi karo bulshadana wax ma bari karo wixii isagoo ku ekaanayaan waayo uu daweecad qalafsan yaheebo qofka markuu wax sameey kaali wiilkayga ilaah ku barakeeyo jazakallahu khayr hayakallah ila ina tiraad kadib waa leedahay marka arinkan waxa weeyna ku talgal maadan u sameyn oo ku dareensana ilaah ku barakeeyo ilaah ka ilaaliya adlis ilaali ina tiraadida laga rabaa ina qaylisid maaha ina garaacadidna maaha halqisaan ku soo qatimaya maalin maalmaha kamid ah aniga ku dhacday ardaydeeda kamid ah oo malaha 4 sano 5 sano meelahaas ay ka soo wareegatay ardayo dugsi aad ugu fiicnaa mashhuur ahaa oo yaani ma sha Allah ayuu maanta waxa arkay soo galabsan dugsiga dhexdiisa ku dhex hurdaya waa aroortii hadaba oo iska hurdaya marka macallinka waa dareemi kartaa arday hurdaysi arday sheekeynaysi arday casar sika macallinka waa lama tusi karo isma jeclo markaas macallinka wuxuu go'aansaday ninkan in uu garaaco isla aniga markaas waxaan isiri ninkan sooqii hagaagsanaa ma aha waa ninkan midka fiicnaa soo ma aha war waa ninkan weligiisa oo faizul awwalka aha soo ma aha waa u yeeray meel gooni ah wala baxay waxa ku yiri maxaa ku haayo maxaa waa dhibkana ku haayo maanta aad la hurdaydo dugsiga dhexdiisa maxaa kugu dhacay wuu ilmeeyay wiilka ilin baa ka soo daadatay marow inaan sii dhaxgalo markaas waxa uu yiri macallin shali lixsa ay ugu dambeeyso dhaa inaan badar cuno xalina xilliga wax la cuni lahaa oo yaani cashi waxaas la kari lahaana hooy aaba isdagaaleeno hooy guriga weybna ugu tagtayba aniga guriga iska joognay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wiilkii markoo ilintii uu dhameystay weydiiyay wiilkaas ka warama hadii anigu ninka hurdaya arki lahaa usha aan la kori lahaa agaraaci lahaa dili lahaa wiilkaas qalbigiisa soo noqon lahaa ma qiyaasi karta ya muallim ma qiyaasi karta waa may xalgaar waa marka hogaho ka feejignaan ina sameeyo naxariisi ina sameeyo ardayadana inay ku kala socnaato arday waxa jirto iska dhib badan arday waxa jiro oo yaani weligiis iska hagaagsanaa maalin uu wax ku aragtay marka kii xumaa kala mid yeelino si goona u waraysa warto miyuu rabaa dadka inuu ku daydo dadka oo kale uu noqdo may miyuu xanuunsan yahay may macaqabad guriga haysato may uu intixbaar adiga waraysa wax uu ku sheegiye wallahi xaqiiqatan maalinka ilaa hadda
arday qaladii wax sameeyay ma ku degdeg xaqiiqatan go'aanana ka qaataybo si gooniyan ula shira u wareesta waxa weeyaan waa barbaara cilmu nafsi wax la yiraahdaa jirto qofka yaani in la barbaaro wixii isagu haayo sa u qarqarinay mar walba wax ku soo bandhiga ya muallim hada muallimna hanu caqabad badan aan haysato dib badan aan la kulanna waxyaabo badan waalidka xitaa waxyaabo badan aynu ka filinaynin baynu ugu yiraahdaan inta doona ka sabarno waxa sabri karo nin qalbigan ilaahay u dejiyo u hagaajiya sabri karo waalidiintana wadi karo awlaadana uu wax bari karo bulshadana uu hogaamin karo sida daraadeeda marka aan isgarabsano ilmihiina midka aqli badan iyo midka aqliga hooseey iyo midka yaani isku keeno aniga la naga rabaa inaan dhisno isku keeno in yaani waxa weeyaan ayagoo dhan mid quraan ka dhigno ilaaha ka dhigi kare aniga la naga rabaa waxa weeyaan sifaatul muallim naajih waxa la yiraahdaa jirto macallinka guuleysay iyo sifaatu ku guuleystayba marka barnaamijkan hada intaana ku soo xiraya maadaama waqtiga aad looga dhacay waxaan leeyahay bal idinkuna ka raali noqda inta waqtigeedan ka qaatay ya muallimadan kula hadlayaaye bal hoogo naxariis sameeyno oo ilmahan xaaladooda la socon aqulu qawli hada wa astaghfirullah